waxay tahay maalin kale oo hor leh oo aan soo arkayo dhul iyo magaalo aan dhigto oo kaliya ka maqli jiray laakiin aan waligay tagin ama soo arkin. muqdisho ilaa Dhobley safar dhinaca hawada ah. waa magaalo muhiim u ah dadka iskaga kala gudbaya labada dal ee dariska ah, Soomaaliya iyo Kenya. magaca magaaladan waxa ay kamid tahay deegaanada sida joogtada ah aan uga maqalno qalabka warbaahinta. maxaa yeelay waa magaalo xarun u ah safarka deegaanada koonfurta Soomaaliya dhaca. Dhobley waa magaalada yar ee ku taala xadbeenaadka u dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Kenya. magaaladu waxa ay xadun u tahay isu socodka bulshooyinka labada dal. waa magaalo istiraatiiji u ah safarka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. magaaladu waxa ay diris la tahay magaalooyinka Taabta, Hoosingow, Afmadow, Xagar, Diif iyo Libooyo oo dhanka Kenya xigta. magaaladan in ay safarka labada dal muhiim u tahay waxa ku tusinaya baabuurta yaryar ee ay dadku raacaan iyo kuwa xamuulka ah ee qaada rarka alaabada ganacsiga iyo xoolaha nool oo si weyn uga shaqeeya halkan. dadku marka ay joogaan magaalada ee ay doonayaan in ay u safraan gudaha Kenya, waxa sahlan in ay magaalada gaari ka raacaan oo si fudud ay ku gaaraan meesha ay ka rabaan dalka Kenya. sidoo kale dadka Kenya ka soo safraya ayaa soo saldhigta magaalada kadibna diyaarad ama gaari ka raaca oo meeshii kale ee ay Soomaaliya ka rabaan sidaas ku gaara. Dhobley waa magaalo isku xirta labada dal ee dariska ah. waa magaalo ay ku nool yihiin dad halgan joogto ah ugu jira nolosha iyo sidii ay u xaqiijin lahaayeen horumar aan heer ahaan ka hooseynin halka ay hiigsanayaan bulshooyinka kale ee ku dhaqan magaalooyinka dalka iyo xitaa caalamka. magaaladu waxa ay ku tiirsan tahay ganacsiga, safarka iyo dhaqashada xoolaha nool. dadka ku dhaqan banaanka magaalada badankood waa dad xoolo raacata ah, waliba saddexda nooc ee xoolaha oo ay Soomaalidu dhaqato ee kala ah geela, lo'da iyo ariga. halkan oo ah banaanka magaalada Dhobley waa dhul baadiye ah. waxaa ku nool qoysas xoolo dhaqata ah. inta aan halkan joogo waxaan arkayaa hab nololeed soo jireen ah oo waqti hore ay ugu dambeysay deegaanada qaar. caw la falkinayo, waa yeel hal meel wada fadhiya oo si wada jir ah u sheekaysanaya. aqal Soomaali la dhisayo, jawi degan oo nabdoon. nolol cajiib ah oo sawir la fahmi karo ka bixinaysa hab nololeedkii soo jireenka ahaa ee waafaqsan hidaha bulshada Soomaaliyeed. deegaankan waa meelaha dhifka ah ee lagu arki karo raadadka nolosha la xiriira hidda dhaqameedka soo jireenka ah ee ummadda Soomaaliyeed. magaaladan ma lahan webi, bad iyo biyo mareeno muhiim ah. xoolo dhaqatada halkan ku nool biyo iyo baadba waxa ay ku tiirsan yihiin roobka. mararka qaar oo xilli roobaadku uu roobku baaqdo ama uu dib uga dhaco xilligii la filayay, waa marka ay ugu daran tahay xoolo dhaqatadu oo ay galaan xaalad adag. waxaana xilligaas lagama maarmaan noqota in ay dhexda u xirtaan sidii ay uga gudbi lahaayeen marxaladaasi adag ee soo wajahday. ganacsigu waxa uu u yahay magaaladan mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan, waxaana isla magaalada ku tiirsan deegaanada kale ee ku yaala gobolada Jubbooyinka, Gedo iyo gobolada kale ee dhaca dhulka ay Kenya maamusho. waxaa ii muuqanaya dhismooyin waqti dhow la dhisay, weliba naqshadihii ugu dambeeyay ee guryaha.
waxayna tusinaysaa in magaaladu ay deegaan ahaan fidmayso, dhisma ahaanna ay mustaqbalka dhow gaari doonto dhul ka baaxad ballaaran meesha ay hadda ku taallo. magaaladan oo hoos tagta degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu dambeeyay ee ay aasaastay dawladdii hore ee militariga ahayd, weliba waqti dambe oo 70-yadii ah, sida ay noo xaqiijiyeen dadka waayajooga ah ee magaaladaasi ku dhaqan. bismillaah walaalow waxa weeye magaalada Doobley waxa la aasaasay 1974 waxa laga aasaasay oo magaaladan dhisay degmada Afmadow. ahaantii ma aysan jirin magaalo xuduudka ku taalo oo wadadan dheer ee Afmadow ka soo baxdo qooqani soo marto taabda soo marto halkan aan joogno hadda dalka Kenya ka gasho ma ay jirin. dadka xilliga joogay haday ay dawladda Soomaaliya dawladda Maxamed Siyaad Barre weeye iyo haday yihiin dadkii deegaanka ayaa go'aan waxay ku qaateen in magaalada halkan laga dhigo magaalo xuduudka Kenya Darisla si ganacsiga iyo isu socodka uu noqdo mid habsami ah oo isu dhow. ahaantii waxaan leeyahay xilliga iyada ee 74 wixii ka dambeysay ilaa 80kii la soo gaaro magaalada dhismeeda maalinta ka dambeysay uu kordhay. xilliga waxa la oran jiray laba liboya la dhihi jiray, liboya Kenya iyo liboya Soomaali, sida diif Kenya iyo diif Soomaali loo yiraahdo. yaa tanina waxay ahayd liboya Kenya iyo liboya Soomaali. Doobley dadku marar badan ayay isweydiiyaan sababta magacaasi uu ugu baxay magaalada. waxaa jira meel magaalada 25 kilomitir u jirto oo la yiraahdo labida Doobley. marka labida Doobley baa la yiraahdo 25 kilomitir bay jidka Afmadow bay ka xigtaa. yaa waxa iyadana cadayn ah in halkan iyada Doobley la yiraahdo labida Doobley baa la dhihi jiray si oo macnaha magaaladan loogu magac daro aageeda in lagu jiro la garto. magaalada magaceeda Doobley ah ceelka dhoobaalo isagana dhoobaal la yiraahdo iyo labada Doobley magacyadaas waxaad moodaa inay isu tageen oo magaaladu magaceedu uu yahay magaalada Doobley iyadoo xilli hore laba libo la dhihi jiray. marka laga soo bilaabo waqtigii Doobley loo diyaariyay in ay magaalo noqoto ilaa xilligii uu burburay maamulkii kacaanka ee dalka hogaaminayay, waxa ay magaaladu ku socotay xawaare sare oo dhismo iyo kobac bulsho ah. laakiin nasiib darro waxaa saameyn taban ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee dalka oo dhan halakeeyay. bilowgii hore inkastoo ay magaaladu ka mid ahayd meelihii loo barakacay ee nabadgelyada loo raadsaday ama loo tagay si looga sii safro, haddana isla magaalada laftigeed ayay dagaaladu saameeyeen. marar kalena abaarihii dalka soo maray ay qayb ahaan raadad aan wanaagsaneyn ku yeesheen. Doobley oo ah magaalo soo koraysa waxa ay u baahan tahay horumar ka ballaaran inta ay u baahan yihiin magaalooyinka kale ee dalka. maadaama ay magaaladu tahay mid cimri ahaan waqtiga ay soo jirtay iska yar, waxaa maqan ama burburay kaabayaasha magaalada iyo ilaha dhaqaale ee la rabo in ay magaalo ku horumarto tartanna kula gasho magaalooyinka kale ee asaageed ah. halkan waa garoonka diyaaradaha ee magaalada. waa isku xiraha ugu muhiimsan ee magaaladan Doobley iyo magaalooyinka kale ee dalka iyo kuwa dalka ka baxsanba. maadaama dalku uu amnigiisu weli hagaajin u baahan yahay, dad badan suurtagal uma ahan in ay dhulka ku safraan haddii ay magaalada soo aadayaan ama ay ka baxayaanba. taas darteed waa qasab in ay dadka amnigooda u baqaya ay diyaarad raacaan. diyaaraduhuna halkii ay ku degan lahaayeen kana duuli lahaayeen waa halkan oo ah garoonka diyuuradeed ee ay magaaladu leedahay. ayada oo taas laga eegayo waa lagama maarmaan isku tashi umadeed, gaar ahaanna dadka magaaladan ka soo jeeda gudo iyo dibadba meel ay joogaanba in ay iska kaashadaan kana dhabeeyaan sidii dib u dhis iyo dayactirba loogu samayn lahaa kaabayaasha magaalada Doobley oo uu ka mid yahay garoonka diyuuradaha ee magaalada. xaqiiqatan marka dhan laga eego intan hadda la haystaba waxa ay ku yimaadeen dadaallo xooggan oo lagu suurtageliyay in ay Doobley ku soo degan karaan diyaarado sida rar iyo xamuul labadaba, kana kici karaan ayaga oo magaalooyin kale u socda. laakiin horumarin intan ka badan waa lagama maarmaan, weliba sida ugu dhow uguna suurtagalsan.
maxay kula tahay aragtidaada xogta aan ku soo qaadannay warbixintan oo aan uga hadlaynay magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose? magaaladeesa jeclaan lahayd in aanu ka dhigno warbixinta aan ku soo qaadan doono muuqaalada kale ee gudaha dalka ah? fadlan nala wadaag aragtidaada. intaas ayaanu ku soo koobaynaa warbixintan. tan iyo warbixinta xigta waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. amaana Allah.